guulaystayaalo beedha gola dowradii sare intay gaari karayaan guulaystayaalo beedha gola dowradii sare intay gaari karayaan بسم الله الرحمن الرحيم waxaa suurtagal inoo noqotay inaan wareysi gaar aan la yeelano rugcadaad siyaasi ah hogaamiye weyn oo ummadda Soomaaliyeed magacii maamuus ku leh Axmed Salebaan Cabdalla oo loo yaqaano Dafle waxa uu ka mid ahaa shantii sare ee golaha sare ee kacaanka ee muddo 20 sano hogaaminaya waddanka Soomaaliya waxa uu ku nool yahay magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka suurtagal ayay noqotay inaan la kulmo oo nolosha aan ku qaabilo أحمد سلبان waxaan dabcan waxaan filayaa markii xukuumaddiinu ay burbureysay anigu aad u daayar in xukuumaddu ay burburtay marka nasiib iyo sharaf ay tahay inaan kula kulmo marka hore waan mahadsan Cabdiraxmaan Xudayfa la yiraahdaa telefishinka qaranka ayaan u shaqeeyaa waan mahadsan tahay Axmed waxaad faahfaahinaad naga siisaa halkan ayaad ku nooshahay waxaad markuu hore faahfaahin naga siisaa noloshaadii halka aad ku dambeysay iyo sida hadda xaaladaadu ay tahay xaaladdeedu waxa weeyaan waa laaji wax kale ma aha haye laaj waxaad ula jeedaa soo galooti aad tahay soo galooti baan ahay waa gartay wadani Soomaali baan ahay waa gartay ilaa iminka wadaniyadoodii mana qaadanayo waa gartay oo macnaha baasaboorkoodii ma qaadan keenii baan haystaa waa gartay kii Soomaaliya wata Axmed waxaad inoogaga warantaa sababaha aad ku diiday in baasaboorkii waddankii aad ku noolayd muddo 20 sano ka badan maxay tahay waxa weeyaan waxaan jinsiyadeedan horta jecelahay waa gartay jinsiyad kale inaan ku darana ma doonayo markaad rabtid inaad socdaashid qaabkee u socdaashaa marka keenan ku socdaa waa gartay socodkaygu ma badna laakiin marka aan socdo keenan ku socdaa أحمد دفلة أيال قوم مجعبة وحاد هيد شنتي سرة قولها سرة وحاد صامرتنا نقول آدو في عن أو قيمة بدن أيال صامرتي هذا مرك أدب في رسوائه أد فجرتي ويا هذا الوجري ودن كي سيد النقضي محاسب رقمه وحوين با الحياة وأدوكتها ما شرح كررنتي سيد ودن في النقضي وواح laga sanaxaa dad sidaa isu galay ilaa inaga isu galay dad sidaa isu galay oo liidnimada heerkaas isu daadajiyay waxa weeyaan waa wax laga naxaa runtii marka inaga tahay dadka kalena de waa in la yaaban yihiin adigoo raalli ah qaran burburkii waddanka Soomaaliya ka dhacay ma isleedahay sabab ayaa kula heeday waan ku lahayn sabab maxay sababtaa waxaanu ugu lahayn muddadaanu dheeraysan haye waxaanu islaahay waxbaad kordhinaysaan waana kordhinay runtii haye laakiin dadku waa nala garan waayay waa gartay marka waxa loo baahnaa in sidaanu markii dambe wadnay si fiican aanu marka horeysa ku dhaqaaqnaabay ahayd waa gartay markii dambe waxaanu samaynay constitution baanu samaynay waxaanu samaynay constitution aqbalaya axsaab badan iyo baratan maxaan ku idhaahdaa ummadeed oo loo baratamo siyaasadda waddanka waa tahay axmedow marka taas waxay ahayd labadii sannadood ee ugu dambeeyey baanu hawshaa gallay waa gartay waxay ahayd 5 sannadood iyo muddo ka horeysaba in hawshaas macnaha waxaad rabteen inaa xukuumadda aad ka degtaan oo aad shacabka talada aad ku wareejisaan annagu inaanu ka degno oo ku wareejino maahe inaanu annagu dadkii ka mid ah nala baratamo waa gartay waa tahay marka dad badan waxaad moodaa in ninkii doonayaana ka dego waa gartay adigu shakhsiyan maxaa doonaysa markaas anigu inaan baratamo baan doonayay waa gartay 20 sano kadib maxaa dhacay marka waxa dhacay dee waxaad aragteen haye waxa dhacay burbur waxa dhacay dadkii oo isnacay waxa dhacay dhiig badan oo shumay
waxaa dhacay maxaan ku idhaahdaa waddankii oo maxaan ku idhaahdaa maanta heerkaa taagan oo aad iyo aad u baaba'ay. xabaddii markay bilaabanaysa halkay ku sugnayd adigu? xamar baan ku sugnaa. haye qaabkay uga soo baxday? waxaan kaga soo baxay anigoo maxaan ku idhaahdaa socdo oo dee maxaan ku idhahdaa dhabbada raacaya yaan kaga soo baxay. waa gar yaa kula socda marka? oo u bareeray haddii lay dilayana ha lay dilo, haddii kalena aan nabad galo oo baxo oo aan ilaahayna waa ay nabadgeliyey. dad badan oo adiga kula mid ahaa sida xuseen kulmiye waddankii ayuu ku haray. adigu marka marna kuu suurtageli weydo inaad waddankii aad ku sii nagaato? maya markaa haye waxaa shaqaynayey qabyaalad baa shaqaynaysay markaa oo maxaan ku idhaahdaa wax walba ka guud martay. dabadeed qabyaaladii ninna waxay siisay inuu joogi karo oo dadkiisii dhinac ka raaci dhibaatada waday kama raacinayo. markii dambe waa la dhacay oo waa la xumeeyey oo waa la fara xumeeyey runtii. waa gartay isagii iyo odayaashii kale ku hadhay. waa gartay laakiin markii hore waxay islahaayeen cidina idinma taaban karto. waa sida ha dadka qaarna waxay islahaayeen ma nabadgelaysaan haddii aad sii joogtaan. si fiican. dabadeedna way dhaqaaqeen. waa gartay ha adigu marka halkee qabatay? kismaayo. waa gartay deeto dabadeed waddankan dibadda uga baxay. waa tahay marka axmed waxaad noo sheegtay intaasi ay dhacday. marka sababaha aad u ordayseen dadka idin bursanayay ma waxaad u haysateen inay idin dilayaan mise waddankuun isaga daaya un idinku ahayd? maya maxaad uga baxsanayseen? haddiina la helo rag badan baana dili lahaa. waa gartay waa tahay markaad oo nalaga adkaado hadda. aad iyo aad annagu qudhidayadu dhulka ismaanu dhigneen. waa tahay marka laakiin nalaga adkaado. ha madaxdii talada waxaanu se garannay markii hore inaanu bal dawladdii bal horta u sii dayno dadka raba dawladda inay xukumaan. waa tahay marka madaxdiinni soo garanmaysid iyagiina waa isdileen oo kuma heshiin waaye. aad iyo aad madaxdiinni marka aad soo baxdeen dib ma isku raadsateen balse aad isku xal waraysataan? maya maxay ku dhici weyday? waxay ku dhici weyday nin waliba wuxuu ka dhacay meel. waa gar maqrib iyo maqshir baanu ka dhacnay. waa gar aniga halkanaan joogaa nin ila jooga oo kale oo raggii madaxda ahaa si fiican ma jiro. waa gar nin walibana sidaasuu meel u tegey keligii. waa sida marka 20 sano kadib mayse leedahay soomaaliya waxa ay ku socon kartaa xukun military ah mar haddii qabyaaladnimo ay ku socon waday oo diintii iminka ugu dambaysay la yimid oo la ismaamuli kari waayey? soomaali ma is leedahay waxaan xukun military ahan waxba loogama qaban kara xilligan? maya. maxaa lagu xukumi karaa soomaaliya? soomaaliya waxay ka tashataa baa lagu xukumi karaa. waa gar waa sida iyadoo ha tashato. haye waa sida waa tahay sheeko yar ma noogaga sheegi kartaa qaabkii inqilaabka aad ku qabateen adigoo mahadsan? waxaan idinka sheegi karaa waddanka markan dambe uu burburay siduu noqday markii ugu horreysay yuu soo noqonayay. waa gartay dalku waa gartay xamar dhexdeedaa la isku dilaayay. waa gartay oo meyd yaalla aada ugu soo kacay ugu imanaysay maalintii. waa gartay waa xilli maa waxa weeyaan 68 69. waa gartay adigu markaas waxaa ahayd miya sarkaal? anuu sarkaal baan ahaa military ka mid ah. waa gartay ha haye aada ugu imanaysay. haye waxa la dhacay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee isdoorashada ahaa. waa gartay rag baa ku shubtay. haye waxaa soo baxday buur xakaba oo cid laga soo doortay aanay jirin. waa gartay haddana kuraastii markii dambe buur xakaba rag ku fadhiyeen baarlamaanka. si fiican ha cid laga soo doortayna hadda ma jirin. haye kuwii maalintii doorashadu jirtay la dooran lahaana waa loo diiday inay isdoortaan. waa gartay meelo badan baa aan caynkaa ka duwanayn. waa gartay heerkaa ma gaadhin laakiin aan ka duwanayn. maxaa ka bedesheen marka arrintaas? yaa maxaa ka bedesheen marka aad timaadeen? waxaan ka bedelay dal dhan oo isbedelay
ummadda Soomaaliyeed way og tahay waxa aanu ka bedelay maalintii kacaan ku dhashay dawladda waxa lagu lahaa millions dayn ah waagar waxa aanay mushahaaro siin dad dhan oo dawladda ka mid ah waagar mashaariic dhan oo socota dadkii ka shaqaynayay way iska shaqaynayeen 9 bilood waagar muddo ku siman mushahar ay qaateen ma jirin waagar waxaasoo dhan baa jiray waagar waxaad odhan kartaa runtii dawladnimo haykal uunbaa iska jiray dadku iska eeganaya dawladnimo ma jirin waagar yaad odhan kartaa waata adigu darajada ka heysay marka kacaanka uu yimi sanadkii ugu horreeyeyba wuxuu soo ururiyey cashuurtii baaqatay waagar deyntiina wuu bixiyey waagar waddankiina wuxuu u bilaabay markaa inuu horumarin u sameeyo dhabbooyinkii xamaree jajabnaa maalintaasaa la sameeyey waxaa la sameeyey dhulka dhabbooyinka xiga oo iska ahaan jiray bacaad la jiidho oo dadka lugaynaya aan damba laga gelin ma garanaysaa meesha ay marayaan oo bacaad ahayd maalintaa waxaa loo sameeyey pavement baa loo sameeyey waa sanadkii ugu horreeyey kacaan ku dhashay soo garan maysid waata adigu kacaanka xisbi kacaanka maxaa ka ahayd maxaan ahaa waxaad ahayd shantii sare golaha sare ku jirtay maxaa kaloo qaabilsanay xilalka kala duwan aad soo qabatay haddii aad nooga sheekeyn karto waxaan qaabilsanaa nabad sugidda Soomaaliyeed waa gar asaasideeda yaan lahaa ilaa 12 sanadood horena madaxwan ka ahaa waa garta markii ugu dambeysay qarankeenu jabay maxaa xilkay haysay marka 12 sanadood يعني dalku wuxuu ahaa nabad buu ku noolaa waaga ha waxaan qabtay oo kale wasiirnimaan qabtay waaga wasiirka waxaan qabtay maxaan ku iraahdo qorsheynta qaranka waxaan qabtay wasiirka daakhilka waxaan ku dambeeyay markii ugu dambeysay xogayaha xisbiga oo guud ah ha waaga waata ugu dambeyntii hadda waxaad ku sugan tahay waddanka Belgiumka waxaana aad ii sheegtay inaad diiday dhalashadii waddankan Belgiumka sidee hadda xaaladda Soomaaliya u aragtaa xaaladda Soomaaliya waa soo fiicnaanaysaa sida aan arko dawladda hadda jirto dagaal ayaa ka dhacaya kooxo hubeysan oo magac diimeed wata hadda joogaan maxay ahayd qaabka way baaba'ayaan haye sidaan u arko waayo shacbigii waa ku kacay dawladdu uun ma aha maanta ma wada nacabtiin idinku ha ya mar haddii shacbigii nacay ma socon karaan waata dalkii Muqdisho goorma isleedahay waad ku laaban doontaa insha Allah sanadkan ama sanadka dambe Axmed Dafle waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku daawanayaan haddii taadu ay gasho oo ay timaado ilaa naftan hebel iskuma sinin maxaa jeclaan lahayd maxay ahayd inaad Soomaali xusuus u noqoto oday ilaahay caabudaya beertiisa falanaya waxoogay dhaqaalaha wuxuu ka qaban karo ka qabanaya waliba wax soo saarka ma aha wax soo saarka iyo wax diridda anigu nin wax keena ma doonayo inaan noqdo oo hard currency-ga ummadda intuu wax ku soo iibsado keena laban laabna ku iibiya iyo saddex laab ilaahay ka hayga ilaaliyo laakiin nin beertiisa intuu wax ka soo saaro ummaddu haddana bannaanka u dirto oo ay ka hesho hard currency ninkaas inaan noqdo maan rabaa waa maasan tahay ugu dambeyntii su-aasha ugu dambaysan kuu diinay waxa ay tahay maadaama in muddo ah Soomaali aad soo maamuleysay Soomaalina aad garanayso maxaa isu haysataa maanta Soomaalisu maxay ku taqaanaa adigu ma waxay ku haysataa in aad ka mid tahay dadkii waddanka baabi'iyay oo dhibka gaarsiiyay mise waxay ku haystaa inaad tahay waddani adiguse maxaa isku haysataa Soomaalida weydii anigu waxaan isu haystaa wixii aan qaban karaya inaan qabtay oo ilaahay ugu ogyahay si fiican taasaan anigu isu haystaa mar haddii aan qabtay ya wixii aan qaban karayay intii aan joogay
maxaa laga rabaa waa tahay habeen ma seexan jirin maalin ma joogsan jirin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed saleebaan dafle ayuu kaasi ahaa oo suurtagal ay noqotay inaan waraysi gaaray aan la sameeyo warligo nabada ummado nabada wanu manahi wanu manahi arrinta la qabo eebow la ogo eebow la adkee yaashayada arrinta la qabo eebow la ogo eebow la adkee nabadu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay nabadu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay inay nabadu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay inay nabadu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay umiyuhuna ku nool yahay in la dhowrawa jib ay tahay umiyuhuna ku nool yahay umiyuhuna ku nool yahay in la dhowrawa jib ay tahay umiyuhuna ku nool yahay in la dhowrawa jib ay tahay sidaan waan wada ogsoonahay maxaanu ilaa liweynaye sidaan waan wada ogsoonahay